شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. anagoo ka socno walaalaha gargaarka aqoonta Maamud Ijaarati, maanta waxaan soo booqnay dugsiga Umuna Khadiija oo ay ka fara qaadeen walaalaha gargaarka aqoonta Maamud Ijaarati. Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda Allah dhaafo. Ardaydana arkiisiin waa ardaydii ay ka fara qaadeen isla markaasina halkaan lagu baro Quraanka Kariimka iyo axaadiista Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale sunnada Rasuulka. Ma sha Allah, runtii maanta booqashadeena halkaan ku imaanay waxay tahay ardaydii ayaan soo booqanay oo Umuna Khadiija waxay ku baranayaan ardaydii aqoonta ahayd. Ma sha Allah, farxad gooni ah inoo tahay inaan maanta soo booqano. Sidoo kale maanta waxaan ugu talagalnay ardaydan inaan soo gaarsiino quraac, sidoo kale iyo duco insha Allah ta'ala. quraacdaas ay ugu talagaleen walaalaha gargaarka aqoonta Maamud Ijaarati, gaar ahaan wiil lagu magacaabo Amiin Yare oo ay dhaleen mid kamid ah maamooyinka gargaarka aqoonta ama kaleetama walaalaha gargaarka aqoonta Maamud Ijaarati. wiilkaas waa wiil yar oo Quraanka Kariimka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fududeeyo ayaa ducada maanta uu soo baxsaday, gaar ahaan ardayda loo qaybin doono insha Allah ta'ala waa arki doontiin hadduu Allah awood la karaa noqdo. marka wuxuu ballan qaaday wiilkaas yar waa wiil da'yar oo ma sha Allah sadaqada aad ay ugu weynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidiintiisa Allah u dhaafo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala hamigiisa sida uu rabana Allah u yeelo. xataa wuxuu yiri oo ballan qaaday haddii Quraanka uu dhameeyo in uu mar kale uu ka farxin doono sidaan si la mid ah waliba ka sii weyn inuu ugu farxin doono insha Allah. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء.
مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة